soo dhawaada baan leenahay ku soo dhawaada degmada Dhudhub iyo deegaamada hoostaga iyo dadweynaha ku nool aad iyo aad baa macnaha waxa weeyaan ururka ka waxa weeyaan loo sugaayay oo loo dhawraayay degmada Dhudhub iyo deegaamadeeda hoostaga aad baa looga dhawraayay insha Allah maanta inoo soo gaareen ilaa ma mahadaale guud mahada kalena waxa la waftiga noo yimi soo dhawaada baan leenahay degmadiina weeye wixii shaqooyina insha Allah waa u socoteen iyo nidaamkii waxa weeye ururka kaaba diyaar baan u nahay anagoo maamulka Dhudhub iyo waxa weeyaan dadweynahaba aad iyo aad baan u mahadsantihiin ka mahadcelinayna soo dhaweynta diiran iyo marxabaynta iyo kaahnimada asaakayna ka muuqata kulli wayna ka mahadcelinaa sida diirada noo soo dhaweysay waxaan leenahay waa magaalo Ilbax waa magaalo qadiimi oo magaalo Ilbax Dhudhub daliya dibadba waa laga maamulayaa anigu waa ogahay waxaan leeyahay reerka haba wadaagsan safarkayga waa la socotaan anagu ururka ka awaanahay kaadiriin waaweyn oo golihii fulinta golihii dhexe intaasba waa wada soconaa barnaamijkeeguna wuxuu daaran yahay wacyigelinta isdiiwaangelinta iyo deegaamada abaabilkooda koode waxa bilowday dimuqraadiyadii hal qof iyo hal cod in dadka talada dib loogu soo cesho haddii dalada dadka dib loogu soo ceshana taladayna idinka leh inaas wacyi galisaanin isdiiwaan galisaanin cududiina soo saartaanin populationka degmadiina la arko shacabaalkayagu intaas soo daarnaa waa inay mahadcelinayna anagu xusbiga urur siyaasadeedka ka amaanayo ururo badan baa naga dameeyo iyagu loolankii baa bilaabmay waa la iimaanaya in la tartamana waa waxa dawladda tan u gudubtay oo madaxweynaha ka yaasiin Cabdullaahi Dani inuu dadka talada dib ugu soo cesho inuu asxaab badan sameeyo wax qabadka Puntland bay ka mid tahay 24 sano kadib in dib dadka talada dib loogu soo cesho anagu ururka awaanahayo hadda wax qabadka iyaga iyo ilaada soo dhaweyntiina ayna ka aragno baan codkeena ku weydiisan doonaa degmada Dhudhub iyo shacabkeeda waxaan idinku mahad celinayaa si aad iyo aad u sareysa sida habsamada leh ee quruxda badan ee sharafta leh ee aad noo soo dhaweyseen run ahaantii waa mid aan waqti badan iyo waayo badan xasuusan doono sidoo kale waa sida gudoomiyuhu idin sheegay safarkaygu wuxuu daaraa waxa weeye waxaan u soconay isdiiwaangelinta run ahaantii waxa weeye waa wax weyn oo u ah degmada mustaqbalkeeda iyo jiritaankeeda wanaag u ah runtii muujiseen ilbaxnimadii aad u dhalateen oo idinku duugnayd waxaan rajaynayaa degmooyin qadiima inaad ka horumari doontaan oo tirada isdiiwaan gelisa aad kaga badan doontaan fariin waxaan u dirayaa dadka Puntland oo dimuqraadiyadda qoorta kaga duuban shacabka Puntland meel kasto aanu tagnay sida aad aragtaan bay u doonayaan inay codkooda dhiibtaan shacabka Puntland hal laga daayo in 2 qof iyo 3 qof ay isku daydo inay masiirkooda qoorta ku duubato dadku waxay u diyaarsan yihiin inay isdiiwaan galiyaan waa loo jeedaa saxaafadii madaxa banaanayd waa taas halka taagan waxaan rajaynaynaa in ay dadku u daayaan ummadda shacabka codkooda oo sida ashaar weyn faa'iisona meeday istaag faa'iiso labada xubnood waa xildhibaano maxay ku soo baxeen qof iyo cod bay ku soo baxeen Soomaalitaan waxa la rabaa dad inaad saa u soo xulataan oo degmadiina dadkii mas'uulka ka noqon lahaa oo wadooyin u sameyn lahaa oo ceelal u qodi lahaa oo iskuul u dhisi lahaa oo toon balan u jeexi lahaa
oo horumar gaarsiin lahaa oo dabaqyo dhaadheer ka dhisi lahaa inaad idinku soo doorataan waa muqaddis inay Puntland ka dhacdo nabadgelyo ayadoo ah doorasho dimuqraadiya oo one vote one coda oo loo siman yahay qof walba qofku doorto oo codkiisa siiyo waan soo dhaweynaa waxa weeye halkaas gabdhaha taagan degmadan quruxdeeda iyo dadaalkeeda iyo kuwa koro Ameerika jira iyo kuwa Ingiriiska jira iyo kuwa Yurub jooga ma salaamaya maanta inay xildhibaanada 720 inay barkooda qaataan baan rajaynaa oo aysan hataa ka yar qaadan inay isdawaan gelisaan inaad samaysaan waxaan rabnaa marka sida aan noo soo dhaweyseen inaad isku diiwaangelisaan diiwaangelinta bilaabanaysa annagoo og reer dhudhub meel ay jiraan bay inay isdiiwaangelinayaan doorashadana diyaar u yihiin sida degmooyinka Puntland ay doorashada ka dhici rabtaan waxaan leenahay sida reer dhudhub iyo degmooyinka ay soo maray diyaar ugu yihiin in doorashada qof iyo cod la gaarsiiyo waana la gaarsiinayaa haddii aan leeyahay waxaan rabnaa taladii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa mahadsan yahay taladii wuxuu yiri waraaniga iyo ka talimayna taladii waa taa halka taale shacab way la taliya waxaan u soconnaa annagu wacyigelin way waxaan ku maraynaa degmooyinka iyo tuulooyinka bulsho aad u qurux badan baa tihiin oo dhalinyaro leh oo shabaab leh oo dumar leh oo iskooley leh oo hablihii dhaqanka leh oo hidihii leh waa idin baahannahay annagu halkan waxaan u maraynaa haddaan nahay urur siyaasadeedka halkan waxaan u maraynaa inaan wacyigelino shacabkayaga reer Puntland intii aan ka gaari karno wacyigelinta awadnaa waxay tahay inay isdiiwaan gelisaaniin qof kasta uu isdiiwaan geliyo si uu biri ugu codeeyo naftiisa iyo qofka isagu wax la doonayo waxaan si gaar ah ula hadlayaa gabdhahan quruxda badan oo horteeda taagan inay isdiiwaan geliyaaniin oo xubnaha konsolka oo degmada dhudhub inay wax ku yeeshaaniin oo ay ku soo baxaaniin biri codkooda iyo muruqooda iyo maalkooda iyo naftooda inay huraaniin oo 720 xubnood oo dhudhub leedahay waa inaa kala bar yeelataan gabdhihiina waa in ku dooranayaan hore laakiin waxaan ka codsanaynaa ururka ka iyo xukuumadda Puntland in jeesooyinku waa nagu yar yihiin degmada dhudhub haddaan nahay dad waxa weeye waa degmo ballaaran dadkeedana wuxuu jiraa baadiyahaas iyo tuulooyinka kale waa in jeesooyinkan loo kordhiyaa dowladda Puntland waa codsanayna sida degmooyinka hore u codsadeen degmada dhudhub waxa ay diyaar u tahay muddo badan aan sugaynay inaan maanta diyaar u nahay dimuqraadiyadna waa la garanayaa codka shacabka ayaa rabnaa maanta inaan ku soo saarno qofka aan doonayno waxaana dhalinyarada u sheegayaa in ay meel ay joogaanba dhalinyarada degmada dhudhub iska diiwaangeliyaan kambeynka ay ururada iska diiwaangeliyaan una tartamaan xildhibaanada ama konsolka degmada dhudhub ay yeelan doonto runtii doorasho qof iyo cod waxa ugu horeeyo la rabo in laga shaqeeyo waa amniga weey haddaynan amni helin doorashada kama shaqayn karno waxaan idinku boorinayaa inaad amniga ka shaqaysaan dadka khalkhalka wada oo doorasho diidka ah ee aan u diyaarsanayn inay dadku codkooda dhiibtaan waxaan filayaa reer dhudhub tusaale qardhaa u ahayd Soomaa maadaama qardha aad aragteen gabdho badan oo iyagu codkooda ku soo baxay dadka cod weydiisto soo baxay wiilal badan oo codkooda weydiisto soo baxay aan cidina khasbin ururkay rabaan galay codka dadka weydiistay maantana waxaan rabnaa tii qardha ka dhacday inay reer dhudhub ka sameeyaan oo waliba ka sii wanaagsan maadaama idinku khibrad hesheen waxaan u diyaar garowdaan inaad ka mid noqotaan golayaasha deegaanka dadka soo gelaya gaar ahaan dhalinyarada iyo gabdhaha gaar ahaan dhalinyarada iyo gabdhuhu waa inay xoogga saaraan sida uga mid noqon lahaayeen isdiiwaangeliyaha kadibna noqda inuu xubin urur noqdo oo u tartamo xubinnimadaas uu gala deegaan u helo intaa waxa dheer muhiimadda aan urur siyaasadeedkan ugu soconnay waxa weeye inaannu bulshada ku wacyigelinno inay isdiiwaangeliyaan isdiiwaangelintu qofku hadduusan isdiiwaangelin micno ma samaynayo 5 sano kadib baa waxaa haysataa fursad ah inaad mar labaad codaysid intii marka 5 sano xuquuqdaada dastuuriga aad leedahay aad khasaarayn lahayd waxaa laydinka rabaa inaad isdiiwaan gelisaan ololaysaan dadkana soo dhaweysaan kadibna
diiwaangelinta waxaa ku xigi doona xilliga codbixinta ood markaa codkiina dhiibataan idinku aan laydin khasbin waxaad dooranaysaan muwaadinkii reer Dhudhub ee gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo golaha deegaanka idiin noqon lahaa